waxa weeye nabadta uu wadaana ee wax jira ma waa tu ciise lagu dagayo waa tu ubadka lagu leenayo waa tu guryaha lagu gubayo anagu dagaal baan diyaar u nahay saacadana joon dagaal baan diyaar u nahay waxa sheegay ciise meel uu joogo qoriga soo qaato ha difaac ciirdigiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo Soomaalinimadiisa ha difaacdo xalina waxa lagu war degdega beesha ciise ayaa mar kale ku dhawaaqday duulaan culus oo ay ku qaadayso reerka Samroonka iyo si la mid ah dawladda Soomaaliland iyagoona ay shaaciyeen reerka inay qaadi doonaan duulaana adag isla markaana ay ku weerari doonaan reerkaasi iyo dawladaba waxay mar kale carabka ku adkeeyeen inay diyaar u yihiin inay dagaalo adag ay la galaan dawladda Soomaaliland iyo si la mid ah reerka Samroon beesha ciise ayaa mar kale si rasmi ah u shaacisay duulaankeeda iyagoona ay sheegeen in markaan ay dagaalka u baahan yihiin in lagu kala adkaado isla markaana in lagu kala calaf qaado ama iyaga inay guuleysan doonaan ama Samro iyo dawladda inay guuleysato iyagoona ay sheegeen in lagu soo duulay kareer ahaan isla markaana la doonayo in la burbursho oo midnimadooda la kala geeyo isla markaana dhulalkooda la qabsado Zaylac halka ugu muhiimsan ay tahay ciise ayaa sheegay in Zaylac lagu soo duulay isla markaana loo baahan yahay in la iska dhacsho reerka waxay kaloo dhammaan reerka beesha ciise ugu baaqeen uqaash reerka in hubka la qaato isla markaana la iska celsho dawladda Soomaaliland iyo si la mid ah reerka Samroon ugaaska guud ee beesha ciise oo marka ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa baaqi ugu dambeeyay ka soo saaray xaaladda galbeedka ee Soomaaliland isagoona carabka ku adkeeyay in la qaado duulaan adag isla markaana kaas oo ku sheegay inuu noqon doono mid lagu kala calaf qaado dabaabaad culus ayaa ku soo qulqulaya galbeedka Soomaaliland oo ka imaanaya dhanka iyo Djibouti iyo Kenya iyo si la mid ah Ethiopia halka oo la sheegay reerka ciise isla markaana ay degnaayeen isku soo aruursheen iyadoona la sheegayo dhinac kalena dawladda hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo si la mid ah Ismaaciil Cumar Geele ay garab taagan yihiin reerka isla markaana ay ku deeqayaan hub iyo lacag isaanad wax kasto iyagu ay u baahan yihiin kaliya si loogu guuleysto dagaalka Soomaaliland ayaa wajahaysa dagaalo horle isla markaana ay la galayso reerka ciise kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ku guuleystareysay nabadeynta beelaha walaalaha iyadoo dhinaca kalena madaxweyne ku xigeenka taliyaha ciidamada Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheer dhamaantoodba ay wax natiijo ka soo saari waayeen colaadda u dhaxaysay ciise iyo Samroonka maalin kadib shalay ay ahayd markii la gubshay oo nolosha lagu gubay caruur iyo habeen isla markaana ka soo jeeday reerka ciise isla mar ay degnaayeen garbadadar ayaa reerka ciise qaatay go'aankii kama dambeys ahaa iyadoo markii horeba hal reer oo qudha uu ka taagnaa reerkan isla markaana kaas oo doonayay in nabad laga gaadho colaadii halkaasi ee ka taagneed reerka Daawud ee ka tirsan ciise ayaa ahaa reerka doonayay in nabadda la qaato cuqaashiisa ayaa isu soo taageen isla markaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin in nabad ay qaataan laakiin taa ugu dambeyntii oo ay noqotay mid fashila xaaladdu ayaa faraha ka sii baxday lama oga si halka ay wax ku dambeyn doonaan iyadoo reerka ciise ay u diyaar garoobeen dagaalka madambeysa ay ku sheegeen in lagu kala calaf qaato soo dhawaada daawadayaasha sharafta leh halkani waa gunta wararka subscribe noo sar channelka like gray share gray muuqaalka asxaabtaada sii gaarsii waa anigu cali shujaac mahadsanid aynu guda galno ciidanka jabhadda ciise isla markaana fadhigoodii ay tahay ay shaaca ayaa la sheegay inay kasoo qulquleen jabhad culus halkaasi kasoo dhaqaaqday isla markaana ay soo gaareen dooxa heemaal halkaasi oo la sheegay inay ka dhigtay fariisimo cusub iyadoo dhinaca kalena fariisimoodii hore sidiisa uu yahay ayaa la sheegay jabhadda culus ee halkaasi kasoo dhaqaaqday inay doonayaan in deegaanada galbeedka Soomaaliland ay mar kale ka fuliyaan weerar aad u culus kaas oo ay ku sheegeen inuu yahay weerarkii kama dambeys isla markaana uu noqon doono mid lagu kala calaf qaadan doono iyagoo jabhadda ciise ay qorshaha la sheegay inay ku wadaan halkaasi jabhadda Samroon oo baraha bulshada fariimo kala duwan soo marsiyay ay ku sheegeen in reerka ciise ay halis iyo kansar ay ku yihiin Soomaaliland jiritaankeeda iyo reerkaanba iyagoo ay shaaciyeen laftirkooda in dawladda Soomaaliland garab looga baahan yahay inay ka siiso arrinka si loola dagaalamo reerka ciise dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ay ka socdaan deegaano ay ka mid tahay garbadadar heemaal ilaa iyo deegaano kale oo tiro badan kuwaas oo la sheegay inay dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wadaan ciidanka ee beesha ciise isla markaana ay doonayaan in halkaasi mishimo ay ka fuliyaan ciidanka Gadabuursa ayaa la sheegay inay ka dhaqaaqeen fariisimo ay ka mid ahayn dooxa heemaal oo markii hore fariisimo ay u ahayd ayaa la sheegay in halkaasi ay isaga dhaqaaqeen kadib markii ay soo gaareen jabhadda ugu awoodda badan ee ciise kuwaas oo la sheegay inay siteen dabaabaad aad u culus dabaabaad iyo gawaadhi ay saaran yihiin gaandhiriga qoriga loo yaqaano BKM7ka iyo qoryo kale oo culus AK47ka uu ka mid yahay sida qoryaha fudud
ayaa ka soo galay dhanka iyo Itoobiya iyo Djibouti kuwaas oo la sheegay in mar kale reerka Ciise lagu garab siinayo isla markaana la doonayo inay ku kala calaf qaataan ee reerka Samaroonka iyo si lamid ah dowladda Soomaaliland dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka socda iyadoo ugaaska guud ee beesha Ciise marka fadhigiisu yahay dowlad deegaanka Soomaalida oo soo diray baaqi ugu dambeeyay kaas oo ku sheegay in loo baahan yahay markaan laga adkaado reeraha Samaroonka iyo si lamid ah dowladda Soomaaliland dadaalo waday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere iyo si lamid ah taliyaha ciidanka Soomaaliland Gaxnuug ayaa ugu dambeyntii noqday mid ku soo dhamaaday fashil iyadoo ciidanka Soomaaliland ay ka adkaan waayeen reerka Ciise isla markaana ay ku guuldareyseen inay xakameeyaan amniga ee deegaanada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan Oodal iyo Salal dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa halkaasi reerka Ciise ka wada 2 maalin ka hor ayay ahayd markii koliyo ciidan ee Soomaaliland iyo si lamid ah jabhadda Ciise iskaga hor yimaadeen mid kamid ah inta u dhaxaysa fardo lagu xidhiyo si lamid ah deegaanada kale ee halkaasi ayaa la sheegay in taliyihii watay ciidanka ee beesha Ciise uu ku amray ciidamada Soomaaliland maadaama tir ahaan reerka Ciise jabhadooda ay tir badnaayeen inay isdhiibaan isla markaana hubka ay dhigaan oo gacanta lagu dhigo si nabadoon ah ee loola dhaqmo ciidanka Soomaaliland oo hogaamiye taliya Gaxnuug ayaa diiday ugu dambeyntii isla markaana ku gacan seeray isdhiibada loo soo jeediyay iyadoo taa ay kalaftay isfarsaaraan labada ciidan isla markaana halkaasi lagu kala dagaalamo dagaal adag oo dhexmaray Ciise iyo Samaroonka meedad halkaasi la iska dhigay khasaare kala duwan soo gaartay ayaa ugu dambeyntii laga adkaaday ciidanka Soomaaliland oo taliyihii iyo si lamid ah ciidanka oo tir badan oo gacanta lagu dhigay iyadoo taliyaha ee jabhadda Ciise hogaaminayo uu sheegay in inta ay go'aamin doonaan sida laga yeeli lahaa hadii la toogan doono hadii kaleba ugaaska guud beesha Ciise iyo qaasha kale reerka dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay halkaasi ka wada iyadoo ugu dambeyntii fashil ku soo dhamaaday wada hadalka u dhaxeeyay arbacadii la soo dhaafayay ayay ahayd arbacadii kama dambeysay ahayd markii ay qabsadeen reerka Ciise iyo aan iraahday madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii noqday mid fashilan nabadeynta iyagoo ay doonayeen reerka Ciise halkaasi wuxuu ka wada dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay iyadoo saacadaha soo socday suuragal ay tahay in jabhadda Ciise ay qaadaan duulaano culus iyadoo reerka Ciise ay aad ugu xumaaday arrinkii ka dhacay Garbadadar isla markaana guryo halkaasi la gubay iyo caruur iyo haween oo ay ku sheegeen in halkaasi lagu ciqaabay taa ay ku sheegeen inay tahay wax aad looga xumaaday isla markaana ku amreen jabhadda Ciise meelaha kala duwan ay joogaan inay hubkooda ay qaataan isla markaana iska dhacshaan ee reerka Samaroon leeyahay dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayay wadaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo si lamid ah Ismaaciil Cumar Geele ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa la sheegay inuu dhaxmaray kulan khadka taleefanka kaas oo looga arrinsanay xaaladda gobolka iyadoona loo soo jeeday isla markaana loo sheegay ugaaska beesha Ciise inay garab taagan yihiin isla markaana garab lagu siin doono arrinka maadaama xaaladdu safara ay ka sii baxday dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyna halkaas ay ka socday iyadoo aan loogeen halka ay ka dambeyn doonto arrinka lama oga si qaabka ay wax u dhici doonaan laakiin beesha Ciise ayaa la sheegay inay qorsheysay dagaalkii ugu dambeeyay iyadoona la qorsheeyo suuragal ay tahay in duulaan ay qaadaan dhinaca kalena beesha Gadabuursa ayaa galay heegankii ugu dambeeyay isku diyaarsheen dagaal ay la galaan reerka Ciise dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay ayaa halkaasi ka socda iyadoo la soo tabanayo in beelaha Gadabuursa ay galeen diyaar garow aad u xoogan isla markaana la sheegay reerka Dudub Ciise Dudub ay yiraahdeen Dudub Cismaan oo dhawaan isku farsaareen reerka Ciise gudaha dhanka iyo Itoobiya ayaa la sheegay inuu kamid yahay reeraha isla markaana go'aanka culus qaatay oo in la iska celsho oo la iska difaaco lana weerar tago reerka Ciise lagu duulo oo qaatay ayaa qayb ka yahay iyadoona la sheegay in abaabul xoogan ay wadaan beelaha Samaroonka oo la doonayo in dagaalka lagu soo lifaaqo ama lagu soo diro reerka Ciise oo ugu dambeyntii iyagu ay yihiin kuwa dawladda ciidanka dawladda oo hogaamiyo Gaxnuug iyo si lamid ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo la garab taagan reerka Gadabuursa hub iyo dhaqaale waa mise daqiiqo